qisadan ka turjumaysa jacaylka dhabta waxaa inooga sheekayn doona aabbahan waayeelka ah kaasoo ifka ku waayay xaaskiisu aadka u jeclaa. hooyaday waxay dhahday, sideed u aragtaa inaad guursatid gabadhan? waan ka diiday, waxaan dhahay ma doonayo, waa gabar madow. kadib hooyaday way ila talisay. waxay ahayd gabar 8 sano jirto. markii aan garabkeeda qabtana daciif ayay ahayd oo caato saa'id ah ayay ahayd. dib waan ka soo horjeesta oo waxaan dhahay ma guursanayo gabadhan. kadib gabadhi way weynaatay oo 18 sano ayay jirsatay. anigana waxaan noqday wiil 14 sano jir ah. hooyaday weli waxay rabtay inay ii guuriso gabadhan. anigana waan diiday oo waxaan dhahay gabadhan madowga ah ma doonayo inaan guursado. hooyana sidii camal ayay igu dhahday, wiilkaygiiyo caqli isku yeel oo guurso. sanadku markuu ahaa 1958 bishii Juun 13 waxaan u istaagay salaad istiqaara si aan Ilaahay ugala xaajoodo mowduucan guurka ah. kadib waxaan riyadii ku arkay aniga iyo gabadhi oo faraka ciyaarayna. iyadu waxay isku dayeysay inay iga baxsato laakiin ma awoodo. markii aan indhaha kala qaadayna waxaan arkay inaan sariirta saaranahay. 3 maalin kadib markaan arkay riyadaas, aabbahay iyo hooyaday iyo walaalkay iga weyn waxaan u waday gabadhi reerkeeda si aan ula kulanno. iyaguna guurkeena way ogolaadeen. iyada markaan la kulmo waxaan weydiiyey, hadda ka hor sawiriyada iguma aadan arkin? waxay dhahdaa, haa, 15 maalmood oo u dambeeyay oo idil riyada ayaan kugu arkayay. aniga iyo adiga oo faraka ciyaarayna. waxaan isku dayay inaan baxsado laakiin ma awoodi karin. markii aan indhaha kala qaadana waxaan arkayay anigoo sariirta saaran. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden, neyden geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcum üşümüş, nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım? waxaan mar dambe ogaaday inay iyadu la nuuc ahayd ubaxa fiyoolaha ah oo aan inta badan la arkin. waayo indhahaygu waxay caadaysteen inay daawadaan ubaxyada gaduudka iyo cagaarka kuwaasoo hareerahayga ka muuqda. laakiin iyadu nuuca may ahayn. waxay la nuuc ahayd ubaxa fiyoolka kaasoo inta badan aanan la arkin. sannado iyo bilooyin badan ayaan soo marnay. ilaahay wuxuuna siiyey hanti iyo awlaad. nolosheennu waxay ku dhisneed reerreen iyo farxad. ilaa ay xanuunsatay Khadiijadaydii bishii Nofeembar sanadkii 2006. waxaa helay xanuun beerka kaga dhacay kaasoo ay aad ula dhibaatootay. si aan u soo daaweeyey Ankara ayaan u waday, laakiin dhaqaatiirta cudurkeeda daawo way u waayeen. 11 maalin kadibna Ilaahay ayaa naga jeclaaday oo way dhimatay. waxaan noqday qof ay haleeshay waali. runtii markii ay geeriyootay xaaskayga oo ay dunidan igu cidlaysay waxa i asiibay waali. miyay iibinayaan qadarka aan lacag siisanne? aniga ayaa lay qoray inaan ku noolaado meel cidlo ah. aniga iyo xaaskayga guurkeenna wuxuu Ilaahay qoray inta aynan dunidan imaan, laakiin qadarka ayaa ku soo koobay 51 sano keliya. xilligeennu ma uusan ahayn guga ee wuxuu ahaa dayrta. Khadiijadaydu waxay ahayd gabar midabkeedu madow yahay. waxay ahayd mid soo jiidasho leh. dunidanna way igu cidlaysay.
waxaa dunidan la keenay laba Khadiijo keliya. Midda koowaad waa xaaskii Nebiga sallallahu calayhi wasallam, midda labaadna waa xaaskayga Khadiijo, Allah u wada naxariistee. sidaas oo dhan ayay u wanaagsaneed. waxaan si wada jira u wada nooleen 18,598 maalmood. hal maalin oo ka midana hadal xun ima aysan oran. waxay ii dhashay 7 carruur ah, hal mid ka mida ayaana inaga saqiiray. adduunyadan 7 carruur ayay ka dhashay, mid ka mid ah ayaa ka saqiiray, 6 kalena tarbiye ayay soo siisay ilaa ay ka noqdaan geesiyaal. geerideedii kadib wax kale ma samayn jirin. buuraha ayaan wareegi jiray, buurba buur ayay ii dhiibi jirtay anigoo ayada raadinaya. qofna ma oga qiimaha ay xaasasku leeyihiin. ilaahow u naxariiso kuwa ilaalsada ee sharfa xaasaskooda. ilaahow Khadiijadayda janno ku abaalmari. Khadiijoy, adna kaalay oo halkan iga kaxayso. hadda aniga keligay ayaan ahay, keligay ayaa fadhiista, keligay ayaana kaca. mararka qaar ayaan tuulooyinka deriskaa socod ku tagaa. markii aan soo laabto oo aan damco inaan albaabka gurigayga furana, waxaa igu dhasha xanuun iyo calaacal. 63 bilood agteyda ma aadan imaanin, ilaa iyo heerkan maxaad iigu silcinaysaa Khadiijadaydiyey? kama baxdid xiskayga ilaa aan jiifta mooye. waxaan si niyada oo dhab ah u leeyahay, wacnaan lahaydaa inay noolaato. waxaan noqon lahaa addoon ay iyada leedahay. waxay ii adeegaysay 50 sano iyadoo aan hal mar xitaa daalin. waxay ii dhashay awlaad wanaagsan, khayr badan Allah siiye, kuwaasoo si wanaagsan ii daryeela. anigu geerida kama baqo, waayo gurigan ayaa layga wadayaa, guri kale ayaana laygeynayaa.